aqoon baanu baahanahay duul baanu baahanahay awoodii dawladnimo iyo ammaan baanu baahanahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي حيث الأخيار تندقيسانيساي كسو دوادا برنامجكي مرتيصور برنامجك مرتيصور تضباط كان وحا مرتيوة بروفيسور ياسين حاجي عبد الله بيلداتشي بروفيسورka oo wax ku bartay dalalka Soomaaliya iyo Britain kuna takhasusay cilmiga dhaqaalaha waxa uu si durugsan uga hadlayaa arrimaha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya siiba dhibaatada xawilaadaha Soomaalida ka haysata bangiyada dibadda miisaanka dhaqaale ee ay leedahay lacagta dibadda laga soo xawilo saameynta uu dhaqaalaha gudaha ku yeeshay shilinka Soomaaliga ee si dabar go'aya musuqmaasuqa hareeyay dalka Soomaaliya iyo arrimo kale marka guud ahaan inta lacag Soomaalida ay xawishay 2002 alif oo dalka loo soo xawilay waa 2 billion 2 billion kaasna every year waxa kordhaysaa 9% macnaha 1.86 billion bay ahayd baa laga yaabaa inay ahayd hadda inay noqotay 2 billion oo gawa 2 billion oo every soo galay marka la sii jibiyo waa 17 milyan per month oo lacaga oo wadanka imanaysa oo dalka ka insa hadii la sii jibiyana yani at least $2 baa qof walba oo Soomaaliya ka faa'iiday 10 milyan loo qaybiyo marka waa dhaqaale aad u badan oo lagu xisaabin karo dhaqaalaha GDP-da hadii si kale loo soo xisaabiyo boqolkiiba 60 lacagta adag oo ay Soomaalida hesho waxa ka timaada lacagta soo xawilo taas waxa isbedel juqraafiga ahaan economic dhaqaalihii soo u dhisnaan jiray insaajirkii Soomaalida boqolkiiba 60 lacagta adag waxa ka helin xoolaha laakiin within seconds hadda waxa dareemaysa dugsi isu bedelay boqol laakiin 2002 alif boqolkiiba 60 lacagta waxa ka helin diaspora waa arrin cajiib ah barnaamijka anigoo Axmed Sheekh Maxamed Tolmaan ayaa idin la socodsiinaya wuxuuna idin ka imaanayaa stuudiyaha Daljir ee magaalada Boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada Puntland bariga Itoobiya qaybo ka mid ah Somaliland gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya xeebaha koonfureed ee Yemen iyo barta internetka ee radiodaljir.com aan gudagalay Professor Yaasiin oo dhawaan aan kula kulmay magaalada Boosaaso waxa uu marka hore ka hadlayaa taariikhdiisa nololeed bismillaahir rahmaanir rahiim taariikhda kooban dano kullayba waxaan ku dhashay Puntland gaar ahaan magaalada Qandala laakiin waxaan waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo ku dhameystay Qandala dugsiga sare iyo intii korriimadeeda ugu badnayd oo jaalhoodkana waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho sida caada ahayd Muqdisho markii aan dugsiga sare iyo ka dhameystay waxbarashadii diinta Islaamka ee kulli waxaan aaday wadamada Yurub 1991 ama 90 markii la galayay halkaas waxaan tagay wadanka Ingiriiska magaalada London waxaan ka bilaabay waxbarashada sare oo ama ha noqoto kuleejooyin ama jaamacado kala gedisan waxbarashadayda waxay ku salgalaysaa aniga inta badan background-kayga uu aad iyo aad ugu saleysan waxa weeye waxbarashada dhinaca ganacsiga maamulka maaliyadda xisaabaadka maaliyadda taasaan khasaaray waxaan ka baxay markii ugu horeysay kuleej caana oo ku yaala Ingiriiska kuleejka ugu weyn oo ah oo la yiraahdo kuleejka North West London College waan ka bartay cilmiga ganacsiga iyo maamulkiisa ka bacdina waxaan galay jaamacadda Isla London ku taala oo aan ka qaatay shahaadada ugu horeysa ee iyadana aan ku qaatay cilmiga xisaabaadka iyo maaliyadda ka bacdina waxaan sameeyay master oo iyadana Isla London jaamacadahaas jaamacad kamid ah oo aan ka qaatay masterka iyadana maamulka maaliyadda si gaar ah ka bacdina masterka aan sameeyay oo ah sharciyada maaliyadda iyo bangiyada waxaan kaloo ahay khabiir oo certified accountant iyo certified financial labadaba taas waa khibradda waxbarashada kaliya laakiin dhinaca shaqada waxaan ku jeex jiraa industriga financiga muddo 15 sano ah waxaan ka bilaabay dawladda hoose ee London xaafad Brandon oo Soomaaliya aad ugu badan tahay waxaan ka shaqeynayay dhinaca maaliyadda iyo istiraatiijiyada ama qorsheynta waxaan ka qayb qaatay mashaariic lagu fuliyo London waxa kamid ah isbedelka Wimbledon oo dadka Soomaalida badan ay taqaano daawato project Wimbledon lagu sameeyay oo lagu balaarinayay
وماشي أقول سوماليا ديكانيد ولا جرهري بروجكت فاينانشال مانجر بنك أخا ضد بدن جروب كشغالين لكن هو كوجري جروب كشغالين وحنا لو كقيب قاتي waxaan qaabilsanaa xaafadaas London waxaan qaybtaas waxaan u qaabilsanaa investmentiga iyo horumarinta magaalada marka waxaan sameeynay research fara badan waxaan bedelay magaaladaas qayb kamid oo waxa degan ethnic groups madow hindi cadaan ba aad grouban marka meelo badan oo ay aad iyo aad u liitay oo guryaha dhinaca housing anaga ka gedisannahay xagga nidaamyo badan baa lagu shaqeeyaa xaafadda Harriston Soomaaliya aad hadda u taqaano oo hadda aad u maleynay ilaa waxa soo misatara waaweyn iyo waxa dadkii balaanka ama istaraatiijiyada wax ka keenay oo loo diray inay soo sameeyaan feasibility study ku jiray waan soo sameynay ka bacdina waxa lagu sameeyay investment fara badan oo shaqooyin badan baa lagu abuuray ilaa waxa shaqo la'aantu ahayd matalan 90% xaafadda ugu shaqo la'aanta badan bahayd sababtoo dad madow u badnaa waxay noqotay markii dambe 70% ilaa dadka shaqo helaan sababtoo ah shaqo waaweyn iyo meelo waaweyn oo services ah baa laga furay dad badan shaqo ka helaan marka mashruucaas waxaan ku jiray mashruuc ugu dambeeyay ka bacdi shaqada waxaan u wareegay dhinaca bangiyada iyo investmentiga oo waan ka wareegnay government public finance ahaa waxaan wareegnay asal xisaynay waxaan muddadaas ka shaqeeyay oo la shaqeeyay bangiyada bangi dhowr bangi oo meesha ku yaala bangi Halifax la dhihi jiray oo hadda ku yaala laftigiisa oo North West la yiraahdo oo iibsaday baa waxaan ka ahaa lagu qaatay shaqada iyadana ah investment bank Soomaaliya London Soomaaliya aad way qalay investment bank waxa la yiraahdaa lacagta bangigu la haysto baa aad invest ku sameynaysaa ma aha lacagta customerka marka taana oo city-ga badanaa la shaqeynaysa meel fara badan oo markaa wuxuu ka banaangelinaysid taas baan tababar aad u badan ku qaatay muddo 5 sano 6 sano ka shaqeynay waxa weeye bangi la dhihi jiray Royal Bank of Scotland oo iyadana aad loo yaqaan bangiga caanka kamid ahaa oo Milton Keynes magaalada la yiraahdo halkaasaan waxaan iyadana ka ahaa aan ka shaqeynay waxaan kaloo ka yani shaqadeedu waa 15 sano meel fara badan Birmingham meel badan ka shaqeeyay laakiin shaqadeedu ugu badan 15 sano waxay aad u la xiriirtaa dhinaca maalgelinta investmentiga iyo waxa aad u la xiriirtaa dhinaca developmentiga watay Yaasin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay runtii taariikh dheer oo qurux badan baa ka sheekaysay inkastoo inaan soo wada koobi karin bal waxaan rabaa maadaama aad khibrad weyn u leedahay dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo bangiyada aad ugu dhex jirtay muddooyinkan waxa aad u taagnaa bangi ku yaala Ingiriiska oo la yiraahdo Barclays ayaa wuxuu sheegay in uu akoonadii xawaaladaha Soomaalidu ay ku lahaayeen uu qaybna xiri doono arrintaas oo aad walaac uga dhalisay dadka Soomaalida iyo dalka dibadda meel ay joogaan bal waxaan rabaa maadaama aad xoogaal tahay inaad sharaxaad bal naga siisid xawaaladuhu qaabkay u shaqeeyaan iyo miisaanka ay dadka Soomaalida ku dhex leeyihiin iyo tusaale awoodda bal lacagaha Soomaalidu dibadda uga yimaada horta ugu horeeyo marka dib ugu laaban horta runta bangiga Barclays Bank waa bangi weyn oo kamid bangiyada ugu waaweyn waddanka Ingiriiska waana bangi kamid bangiyada ugu waaweyn adduunka Ingiriiska kaliya maaha haddaan dib ugu laabano xawaalada ama money transferka waa qayb kamid ah sida marka bangi laga hadlayo waxuu soo saaraa waa product macnaha wuxuu leeyahay badeecadaha uu leeyahay mid kamid ah way laftigiisa bangiga laftigiisa in lacagaha xawaalada uu lacag buuxisa sameeyaa sidoo kalena waxaa jira shirkado si gooni ah iyaguna sida inagoo kaleeto xawaaladahan oo kaleeto iyaguna gooni uga sameeya marka haddii noqon lahayd LCD haddii noqon lahayd deynta uu bixinayo haddii noqon lahayd xawaalada uu sameynayo kulliba waa wax soo saarka bangiga soo saaraan marka bangigan dhinaca haddii aan fiirino yani aad iyo aad ba Soomaalidu ay maadaama bangi weyn yahay oo meelo badan adduunka ku yaalo ayaa xawaaladuhu ay ku lahaayeen xisaabtoodana ay ka qaadanayeen meel kale maadaama electronic lagu kala xawleeyo oo waxyaabaha xawaalada khatar ku tahay waxa kamid ah in daqiiqadii lacagta qaadanaysid yani $1 billion ba waxa lagu kala xawleeyaa muddo minute ah oo meel kale u wareegaysa waxyaabaha marka arrintaas arrin badan ah dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo sida hadda corruptionada iyo la xiriirta way sababtoo ah Soomaaliya oo 10 milyan hal inta maqal marka laga reebo ilaa 3 milyan baa lagu qiyaasay inay maqan yihiin wadamada Mareykanka jiraan lacag bay soo xawilaan lacagtii soo xawilaan Soomaaliya timaada waa yani Soomaaliya oo ogtahay oo waxyaabo fara badan baa ka socda oo geedkii ama Soomaaliya kaliya ma Soomaaliya Afghanistan South Asia lacagahaas waxay galaan wadamo kale dhaqaalahoodan kor u qaadaan
haddii marka matalan dad badan oo wadamada reer galbeedka kasoo horjeeda si walba si kasoo soo horjeedeen oo wadamada ku nool ayay waxay ka baqayeen in lacagahaasi ay u tagaan labana control karo oo lacag la soo xawlo cidna ma dhihi karto lacagta qofka lama siin karo qofkina lama yaqaano marka si ay arintaas ay looga hortago ayaa wadamada Mareykanka ugu horeeyay iyo wadamada Ingiriiska ama Ingiriiska wuxuu soo saaray sharci oranay inuu bangiga ganaaxayo oo malaayiin ku ganaaxayo hadii lacagtaas meela ama qof aan kamida dadka ay doonayaan oo lacagta kamida helo ama shirkad ay doonayaan ama kamid ay doonayaan oo soo galo يعني $1,000,000 بالجناحية مركب $1,000,000 هدوت وأنت سكنة وأنت سكنة وهل ترسلوا بحي مركب هدوت هل عقول حولي هديت وأنت سكنة إدعان ولا عقد أنت نقطة كمباني شركة دي واحد رجع أنت 1 مليون 2 مليون لو خسارة مركب لو سمينا يوم حالها لو يعني حيابا خيرته دم بالقدر جاي يحكم بالله حريو دم بالله يعني أرنتي وأرنتينا عدول دكتيني مرحلة ضدك سياسة دقالها إندي أو دمرك بجرد إنجليز أخذ حماية إن أرن لجوا ضد ما يأتي أو لسكو دولد عاد بريش وصارت إن مقالنسا قناحة صارته لو ما ده يوم دام دم مقاديرين توس بنكي وحر لكن محل كين يا وحيابه كو كلفي أنا سمينيس مركا سومالي ذا أرنت عقبة أو عاد وتاعن هدي مركا أرنتاس أي دحضنا وأرين ونقطين وكان الصومالي كريمة هي ودمة فربنا أو ودمة حولات عن ودمة كفاية حولات هذا ندي بقول لابتو بقول هند قالك هذا النوع ودم والبع صومالي ذاك هذا مثلا صومالي 8 مليون إلى 6 مليون أما 2 مليون بعلقهم قاين ودمة هي البيت ككم قاينين دقالها إنه وحكو حنايا هي حولها يكلوا ما يصير يحلها السود الجيو يوشيو يريح برودكت فيها حوالده وأرين آد ودقالة ودونك وسكوسا كردي تصال أهان هذا سوق هذا النوع قناع سجان حوالات ده 2012 وحدا وقت 2016 لقارن صدق بقول يصدق إلى بليون أيها لعقد حوالات دونك ولقيس لقو محل ده لقو حساب لقو قياسي وحي كردي صدق بقول تواتر إلى 2 بليون بيتكتي مركز في عن لقو قياسي لعقد جودها ها ودنبا وحي كردي بقول كيبا 29 haddii aan fiirino wadamada ugu badan oo aadka u isticmaala waxa kamid ah wadanka Saudi Asia 37 buu isticmaalaa xawaalada saacada soo sheegnay Latin America ku xiga waa 17 waxa ku xiga wadamada East iyo North Africa waa 11 wadamada Sahara ka hooseeya inaga aan ku jirno 6 weeyaan Soomaaliya waa 9 marka waa Soomaaliya waa bay ka tahay 372 bilyan marka guud ahaan inta lacag Soomaalida ay xawishay 2002 oo dalka loo soo xawilay waa 2 bilyan 2 bilyan kaasna every year waxa kordhaysaa 9% macnaha 1.86 bilyan bay ahayd baa laga yaabaa inay ahayd hadda inay noqotay 2 bilyan oo gawa 2 bilyan oo every soo galay marka la sii dijibiyo waa 17 milyan per month oo lacaga oo wadanka imanaysa oo dalka ka imanaysa hadii la sii dijibiyana yani at least $2 baa qof walba oo Soomaaliya ka faa'iiday 10 milyan loo qaybiyo marka waa dhaqaale aad u badan oo lagu xisaabin karo dhaqaalaha GDP-da hadii si kale loo soo xisaabiyo boqolkiiba 60 lacagta adag oo ay Soomaalida hesho waxa ka timaada lacagta soo xawilo taas waxa isbedel juqraafiga ahaan economic dhaqaalihii si u dhisnaan jiray sajirkii Soomaalida boqolkiiba 60 lacagta adag waxa ka helnaa xoolaha laakiin within seconds hada waxa dareemaysa dugsi isu bedelay boqol laakiin 2002 boqolkiiba 60 lacagta waxa ka helnaa diaspora waa arrin cajiib ah marka 2 bilyan lacagta 2 bilyan ka wadanka ugu badan oo soo dira dhinaca Soomaaliya ka timaado wadanka Mareykanka iyo North America iyo Canada wadamada ku xiga waxa kamid ah wadanka hadda laga joojiyay wadanka Ingiriiska baa ku xiga oo Yurubta wadamada ku xiga ah marka hadii 2 bilyan la joojiyo waxa dareemi kartaa boqolkiiba 60 lacagta Soomaalida ee ka imaanaysa dibadda lacagta adag ahayd ayaa la joojiyay waa economic ku dhacay wa boqolkiiba 60 dhaqaalaha adka ee Soomaalida baa meesh xoolaha ka ahaa sanadahan dambe wax u wareegay lacagta dibadda ka imaanaysa
ها sababtoo ilaa 3 milyan oo qof ah oo dad ah oo diaspora ah oo diaspora ku maqan oo lacagta soo diraya haddaan ku sii arrinta cajiibka ah marka darasada si fiican waqtiga kamida lacagtaas la soo diraya seeba loo sii dhigdhigay waxa loo sii dhigdhigay waxa lagu leeyahay lacagta qayb kamida waxay gashaa dhismaha iyo real estate-ka qayb kamida waxa lagu istaaray maxaa dhahaa capital business small businesses iyo medium business qayb kamidana familiyaad baabad toos ugu xiran marka waxa dareemaysaa in dhaqaalaheeniba meesha aad ugu xiran yahay oo boqolkiiba 60 lacagta adkeeda dibadda ka iman jirtay maadaama aan hadii ku xiran tahay diaspora hadii la joojinayo waxay noqonaysaa in maxaa la dhahaa iyaga hadii la joojinayo halkaas ay economic disaster economic crisis ama dhaqaale baba ka iman karo hadii taas waxyaabo la yaab kale imanay waxa hadii arintaas xal loo waayo oo ay dhacdo in bankiga si rasmi arinta ugu dhawaaqo ama lacagta dibadda ka imaanaysa la joojiyo miisaan inta la egbay Soomaaliya ku yeelan والله miisaan aad u fara badan hadda waxyaaba isbedel waxa kamid ah oo dhaqaalaha wadamada Yurub hadii dhaqaalaha crisis-ku hoos u dhaco Soomaaliya waxa ku yeelanaysaa saameyn ku yeelanaysaa sababtoo ah hadii dhaqaalaha ay ka dhacdo Mareykanka iyo Yurub oo kale waxa yaraanaya lacagta soo diray hadda meesha 2 bilyan ka tahay waxa yaraanaya hoos uga yaraato hadii hoos uga yaraato dhaqaalaheeni waa sii yaraanaya marka si dadban ugu xirmay Yurub iyo Mareykan dhaqaalaheeni waa si dadban wuxuu ugu xirmay Yurub iyo Mareykan marka hadii adiga mar walba macnaha hadda runta hadii la saameyn bay ku yeelanaysaa horta khasab ah laakiin waxa laga yaabaa waxay ku xiran tahay ilaa 3 milyan oo Soomaali ciyaar ma aha oo Yurub jirta oo Ingiriiska Mareykanka ku nool waxay leeyihiin cod iyo food marka dawladda way ku khasbi karaan way ila adag tahay waa laga yaabaa inay noqoto laakiin horta mar walba xawlaad lama joojin mid meesha laga saaro way bangiga wax xiray oo serviceka bangi kale oo sameyn kara adag oo meesha jooga oo wadamo badan ku yaala ama aad u baaloola qabsaday lacag fara badan baa taala laakiin micnaheedu ma aha in lacag badan transferka la joojiyo lama joojin karo xawlaadaha sharciga iyo laysinkii ay dalalkaas ku lahaayeen wuu shaqeynayaa laakiin bangiga Barclays oo kale waa bangi haduu lacagaha joojiyo oo Soomaa aha saameyn Yurub oo dhan iyo Mareykan ku yeelan kara waa khasab waxa weeyaan waxay ku yeelanaysaa waxay noqonaysaa in hadda maadaama meeshii isagu service-ki qabto in bangiga in yani service-ki lacagti maadaama bangiga la dhigaa moogtahay annagana waxaan qaadanaa waxa weeye lacagti inta laga qaata marka lacagta bangiga isagu wuxuu ku yaala Dubai wuxuu ku yaala Kenya waa easy in marka hada wuxuu ku yaala gobollo banaanka arrintan Soomaali kaliya ma saameynaysa sidaan ku sheegay dadka ugu badan waa South Asia matalan oo ilaa boqolkiiba 29 kamid ah dadka ugu badan oo lacagaha dira anaga maadaama boqolkiiba yani 9 laakiin dadka ugu jilicsan baynu inagu maadaama inaan dawlad dhexe awood dadka ugu jilicsan waxa ku noqonaynaa boqolkiiba 60 income keeni lacagta adkaa halka ka yimid marka boqolkiiba 60 marka laga joojiyo 40 kuusoo haray kaliya waa dib waxay noqonaysaa waxa laga yaabaa familiyaad malaayiin ah baa ku nool waxyaaba ay ku warsin u jeedeen waxa kamid ah maadaama anaga aanu boqolkiiba ay noqotay meel walba oo Soomaali joogo lacag xawlaada baa lageeyaa marka waxyaabahan ay iyagu joojinayaan kamid tahay in macna dadka naga soo horjeeda iyo dadkan ma garanaysaa ay leeyihiin waa yani aadka uga soo horjeedaan waxaas bay u gashaa laakiin dadkii Soomaalida lagama joojin karo meeshii qof walba xukumo ha joogo waa in lacag timaada dadka ku nool yihiin aniga shaqada ma qofka meesha haysta ama xukuma ama jooga laakiin in aniga marta xawaalna aan geeyno ku khasbanahay waa customer bankigan marka maadaama uu banki weyn yahay hadii go'aankaas uu qaato hadda de waan ognahay oo dadaalo iyo ololayaal badan baa socda oo la doonayo in arintaas bankigu ka laabto oo culays lagu saaro inuusan bankigu uusan gabi ahaanba lacagta joojin iyo akoonada uusan si rasmi u wada xirin hadii arinta lagu guuleysan waayo ma jirta cabsi ah in bangiyada kale ee Yurub iyo Mareykan iyo iyaguna ay ku daydaan وخاصة وكده يعني ماشي أمريكا والأمريكان بابلابي بإنجليز بمرسا يوسكود حيين مدك مشكلة ده ماشي بنجي جاهز تنا بنجي كم واحد نكليه وشرعية دود إسوسر بنجي جالس هو جناح يسوع بنجي وحويا العقب بدون يعني صميو هدي اللي لو جناح يا هدي لو وهر وكيس اسمه عاسة لما أنا ده واحد لكن تقولي كلام ما هو ده والعقب بحيث وحتى ساعة تولا كتالا صوماليا تولا كتالا أفغانستان تولا كتالا باكستان maxaa bangiga saaray qof Pakistan ehelkiisa oo Mareykan joogo wadaray in aniga aan responsible qaado qof halka joogo wuxuu sameeyo marka sharciyadan dawladdu ay soo saartay ee ah hadii bangigi lagu helo inuu xawilay lacag dad danaha reer galbeedka ka soo horjeeda sida ururada ay xabjirka yiraahdaan ama waxa la yiraahdo argagixisada oo kale hadii lacagtaas bangiyada xawilan ay gaarto
baa sharcigan dawladda ay soo saartay wuxuu ganaaxayaa bankiga lacagtaa diray ha qof walba nimanka kaliya dadka kaliya maaha laakiin anyone oo danaha reer galbeedka soo jeeda qof buu noqon karaa iska caadi ah oo bankigana ma xakameyn karo qof wuxuu noqon karaa iska ninkan hadda matalan lagu qabsaday inuu maxaa dhahaa information ka bixinayo kale anyone macnaha dad badan baa wax badan baa jira iyaga xataa dawladda jira dawladda Iran oo kale lacag gaarsiisid waxa ama qof xataa ka socda si inta aragtid badan uu galo oo de shirkad matalan lacag Dubai joogto matalan waxa joogtaa Ingiriiska ama Mareykanka lacag baa shirkad u soo dirtay shirkadda ganacsi waxay samaysaa Iran tasriif ka saaran way saameynaysaa bankiga iyo qofkii labadaba macnaha arrintu kaliya waa arrin sharci yani ay doonayaan inay iyagu powerkii adduunka dhan ay ku qabsadaan reer galbeedku oo ay maadaama dhaqaalihii waxyaabaha isbedelay waxa kamid ah dhaqaalaha Soomaalida maanta 60% wadamada reer galbeedka ka imanaya si dadban oo jida diasporadii lacag soo dirayso dhinacii kale technology-ga iyo dhaqaalihii iyo world banking iyo wixii way haystaan marka si dadban dhinaca kale lacagteena dollar baan isticmaalnaa ma waa isticmaalnaa shan Soomaaliya marka dhinaca laga cashuurti waa loo marka si dadban markaan u fiirinay annaga waxaan ka midnahay dad anagoo Soomaaliya joogna waxaan ka midnahay dad Mareykan state Mareykan baan marka wadamo badan saasana jira marka dhaqaalihana waxay yiraahdaan باورka waxa weeyaan power and money dhaqaalihii waxa weeyaan waa power labada power jira midna waa military midna waa lacag marka labadiiba waa lagu cadaadinaya hadii nin miskiin oo Soomaaliya oo $100 loo soo diri jiray leeyahay lama soo diri karo oo lacag aysan soo gelin ama reer dhan oo lacag yar biilan jiray oo wiilkooda ama gabadhooda u maqnayd leeyahay $100 ama $50 ku soo diiday waa la joojiyay dambiil dame iyo magaalada dame iyo biil dame qaalis waa arrin khatar weey marka waa arrin lagu gortamayo oo siyaasiyan laga rabo in aad ka tanaasusho waxyaabo badan adiga reer galbeedka aad ka soo horjeedeen yani waa dadka aad ka soo horjeeda oo aad ku xuquuqora nidaamkan ee capitalismka ama nidaamkan burjuwaasiyiinta leeyahay waxa u bixiyeen islaamriga cusba ama gumeysiga cusba ay u bixiyeen niman badan oo aad ugu soo shalay oo kale dhawaan madaxweynaha Puntland mar uu hawladaha la kulmay Garowe wuxuu arrintan ku tilmaamay cunaqabatayn dadban ama cunaqabatayn haddii marka sida muuqata oo hadda reportigan aad akhriyaysid oo ah warbixintii ugu dambeysay ee la soo saaray ay muujinayso in 60% dhaqaalihii Soomaalida uu dibadda ku xirmay wixina ay tahay wax sida u fudud oo hal qoraal la soo saaro cunaqabatayn lagu saari karo maxaa la oran karaa lagu qiimeyn karaa in noloshii Soomaalidu ay ku dambeyn karto haddii ay sidan ku sii socoto markastana dhaqaalaheena uu dibadda ku sii xirmayo horta haddaan dib ugu laabto waxyaabaha laga faa'iido diasporada yani oo anaga ugu horeyn oo taariikhdii diasporada dhaqaalaha ay sameeyaan economic diasporada dhaqaalaha abuuraan adduunka wax history badan ba ku leeyahay wadamada aadka uga faa'iiday wadanka Israa'iil baa kamid ah dhaqaalihiisa 70-60 wuxuu ka iman jiray wadamada dadka dibadda ka tirsan bay ahaayeen dhaqaalihii bay soo wareejiyeen investment ku sameeyay wadankoodii oo si tartiib ay u yimaadeen warshadii wixii dhan laakiin taas inkastay asal u tahay nidaamka iyo siyaasadda wadanka ka jirta waxaa kamid ah wadamada aadka uga faa'iiday iyadana oo aadka loo yaqaano oo dhaqaalaha horumarka boomingka keenay China kamid ah wadamada hadda China dhaqaalihiisa boomingka u leeyahay waxaa kamid ah diasporadooda Chinese-ka ama Chinese-ka dalashooyinka kala qaatay Mareykanka iyo Europe degan oo Chinatown iyo meelaha Chinese-ka caadiga ah oo kala jaradii reer galbeedka iyo kala jaradii business culture waxa weeyaan dhaqanka ganacsiga reer galbeedka iyo dhaqanka ganacsiga Chinese-ka yaqaana oo South Asia oo dhan qabsaday مثلا هونغ كونغ markii la yiri China lagu daray bay China dhaqaalaha ku horumaray maxaa keenay dad badan oo lacag diaspora ahaa oo deganaa oo khabiir ahaa oo lacag badan ku lahaa reer galbeedkii ba invest waxay ku sameeyeen China waxay fahmeen sida reer galbeedka wax looga gato taariikhdeeda waa technique marka falsafadahaas iyo ideolojiga cusub iyo maxaa dhaqaalahaas cusub oo dhaqankii dhaqaalaha ay barteen oo cusub baa wuxuu keenayaa horumar aad u fara badan waatan hadda Soomaalida already oo jeedid inay barow ka tahay oo ay dhaqaalaheeni traditionalka ahaa ay si indirect loo bedelay markiiba oo boqolkiiba xagga ugu xirmay
haddii si kale aan kugu dhigo saxda u sheegtaa tiri cunaqabateyn weeye oo siyaasadahan waxa laga yaabaa inay dad kale ka dameeyaan xawaalada kale inay ka dameeyaan siyaasiyiinta reer galbeed inay ka dameeyaan meeshaan waa sida adduunku isku wada xiran yahay ma aha waxa laga yaabaa xawaaladaheenu waa xawaaladaha ugu khatarsan ugu boominsan xawaaladan matalan haddaan kasoo qaato xawaaladaha reer galbeedka Western Union xawaalada la yiraahdo iyo MoneyGram labadaba xawaalada Soomaaliya aad ugu horeeya meelo badan waliba Soomaalida hadda xawaaladahoodu waxa ay ku jiraan marka laga rabo xawaalada yar yar wali waxa ay ku jiraan oo boqolkiiba boqol ku kooban yihiin ganacsiga Soomaalida markay international ka dhigaan وحوالد صوماليا نقطة حوالد سود إيش وحوليسا أفريقيا دنا وحوليسا عرب دنا وحوليسا وحالة جاية بعد دخل صوماليا دخل دنا على جناح سين عاد درسها أنكو سمية كم إذا أدبت مركي بقى فكرة عصب يكريتيف عصب دنا على جناح سين عاد وناك سوي مركي حالة جاية بقى إن أنو حاكو صارتي نمتنا waxaa laga yaabaa hadda xawaaradan online automatic ah wali Western Union ma isticmaalaan oo Soomaalidu ay si keenis qofkii ku siinayaan lacagta hadda aad xawilaad Ingiriiska Ameerika aad geysay daqiiqad kadib in boos laga qaato ha waxa laga yaabaa hadda soo wadaan aad still socota hatta mobile payments oo ah lacagtii telefoonka lagu ridayo isla markiiba qofka hadana qaadanayo ku adeeganayo oo waxa dhici karta boos joogo oo lacag ka xayiran tahay walaalka Ameerikan jooga inaad tiraahdo warniyahow qada cunayo $5 baa lagu leeyahay soo xawil oo markiiba intuu ku soo diro second aid waa arrin yani technology fast noqon karta marka arrimahaas oo dhan daraasadahaas oo dhan reer galbeedka iyo aqoon-yahanadooda way sii darsin way ogyihiin marka lama isticmaalo wali laakiin way ogyihiin inay Soomaalida iyo dadkan dibadda ah diasporada ay waxyaabo badan ku soo korinayaan dhaqanada reer galbeedka oo geedka mid kale waxay noqonayaan dad laba dhaqan leh oo aniga matalan waxa wali aan iman doonta oo Soomaaliya iman doontaan in Soomaalida ay keenaan maadasida Asia Asia hore uga galeen shirkada Mareykan iyo Ingiriis iyo Europeana oo ninkii Soomaaligaana uu yahay shirkad Ingiriisa laakiin waa Soomaali boqolkiiba 60 ama 90 dadku waa Soomaali ninku qofna qof Soomaali laakiin shirkada Mareykan in Soomaaliya timaado oo isaga ku badiso dhaqaalihi marka dhaqaalihi labadiiba waxa ka faa'iideeya Soomaali dadkii Soomaalida ahaa oo soo laabtay iyo qofkii magacii Mareykanka ama Ingiriiska uu isticmaalayo marka arrimahaas oo dhan waxa laga yaabaa in ganacsatada Mareykanka ama Ingiriisku ay ku dhex jiraan oo ay yani business policy business war economic war baa jira dagaal dhaqaale baa jira oo caadi ah oo loo jeedo marka dagaalka dhaqaale waa lagu qaadaya laakiin aniga maxaan aaminsanahay ama aan ogahay insha Allah taala ima doonta Soomaalida hore ma aha Soomaalida dictatorial 20 years jiil cusub soo baxay Soomaalida waxay maqan tahay 23 years 23 years qofkii 20 jira maanta oo 40 way kii ku dhashana maanta 20 major way jaamacadu ka soo baxay marka meesha waxa la isku diraa dhinaca power unity-ga haddii sida Soomaalida u kala jaban yihiin loo kala jabnaado xagga marka waa loo karbaashaya dalbiga lagu dhacaya laakiin haddii aan noqoto one community oo isku xiran waxaad ku qaadaysaa waxaad isticmaalaysaa awooddaada cod iyo awooddaada dhaqaale iyo awooddaada siyaasadeed miisaan baa yeelanaysaa marka sharciyada wax laga samaynayo hataa MBA ku yeelanaysaa marka MBA kale baa influence ku samaynaysaa marka waxyaabaha lagu sharciyada ah meesha waxa la isku diraa meelahan reer galbeedka wadamada ah sharciyada la soo saarayo oo barlamaanka anaga waxa laga yaabaa qofka Soomaaliya barlamaanka doonayo inuu hal mar intuu cod qaado lacag yar qaato oo meeshii ama qabiilku ay doonayaan in meeshii ka dhex muuqdaan kaliya laakiin xagga maaha xagga waxa way qofka meesha ku tagaya influence-ga oo ku sameyn karo halkaas sharciyada iman doonta oo adiga saameyn ku yeelan doonta hadda qof ganacsato inuu ka hortagi karo matalan haddii qof jilicsan qof adaga daageysatid sharciyadan xawaalada soo saarayo qof xaldhibaano kale ka soo dhaadhicin kara oo campaign fiican sameyn kara oo ka dhaadhicin kara in sharcigaas uu danta waddanka dhanka soo horjeedo maaha waddanka community kaliya laakiin waddanka Ingiriiska ama Mareykanka uu aad uga soo horjeedo dhaqaalaha dhimayo oo cadeymo fara badan evidence badan research sameynaya oo evidence badan presentation fiican u jeedinaya oo ku qancinaya in ay dan noo wada tahay inaan la sameeyo ha ma aha kaliya qof noocaas oo kala ah baa lagu xisaabtamaya marka haddii laakiin aad kala jaban tahay oo aadan unity ahayn 2 million ka maqan oo kaleeto ay saas sida hadda wadanka loo kala qaybsan xagga uu kala qaybsamaan waxay noqonaysaa in rag badan oo kale ba kula dagaalamaya barnaamijku waa martisoor waxaadna kala socotaan radio Daljir toddobaadkana waxaa marti inoogu ah Professor Yaasiin Xaaji Cabdilaahi Beeldaaje oo ka hadlaya arrimaha dhaqaalaha
halkaas ayuuna barnaamijku inooga sii socon doonaa balse qadar markii aan aqoonsanay ama aan aqoonsaday khatar ku imaan karta amniga nabadgelyada iyo xasilada dadka reer puntland annagu aan mas-uulka nahay hogaanka u nahay dowladda puntland waxay si rasmi ah u joojisay maanta oo 14 bishu tahay doorashooyinkii deegaanka oo dhici lahaa dirito 15 juulaay iyadoo la qaatay go-aankan adag waqtigii loo baahnaa buu dhacay waxaana loo baahan yahay waqtiga camal min go-aan adag baa loo baahnaa waana madaxweyne waa sameeyey dowladdii sideedii baa loo ictiraafsan yahay meel kastaba nabad baanu rabnaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay hadda meel u boodine dadkana la fadhiisato la wada hadlo xal puntland lagu dhibaatooyinkeeda lagu xalliyo in la sameeyo waxaan rajaynayaa sidii waagii naga dhex dhacday puntland mar kale inaga ka dhicin dhexdiina qalaaskaya iyo waayaadar mar kale isbaysaan waa laydin yaaba waxaan rabaa tan ah dibadda in badan baad ka sheekaysay iyo hawilaadaha iyo runtii sharaxaad aad u badan oo dad badani aan hubo inay ka faa'iidaysanayaan baad bixisay dhinaca gudaha waxaan ka warqabnaa iyadana in dhibaato badan oo dhinaca sicir bararka ama lacagta shilinka ahayd ee Soomaaliga ay dhibaato badan ka taagan tahay oo dhinacii gudahana weli dibadda lagu xirmayo oo hadda in badan lacagta ay soo wareegayso in dollar la isticmaalo oo lacagta Soomaaliga ay meesha ka sii baxayso tan iyada maxaa oran kartaa wala horta arinta shilin Soomaaliga waa arin ku xiran bangi dhexe oo adag oo la helo iyo dawladda Soomaaliyeed oo wadanka dhan dhaqaalihiisa siyaasadda dhaqaalaha gacanta ku wada qabata arinta hadaan la helin waa adag tahay in la helo shilin Soomaali fiican oo laga baxo lacagta adag aan isticmaalayno haddii dhinaca kale ugu dhigtay steel de maadaama 60% lacagta dawladda ay tahay lacag adag oo xawaaladaha in ay bixinayaan lacag adag ay dadkii siinayaan shilin Soomaaliga aan dib loo soo daabacayn waxay noqonaysaa arrin aad u dhib badan sababtoo ah waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalaheena iyo wax soo saarkeena dhinaca waliba xoolaha oo maadaama anaga dad xoolo leeyahay aan xoolo u badannahay iyo dhinaca beeraha kalluumaysiga yani arrin u baahan in bangiga dhexe iyo maxaa la dhahaa dawladda Soomaalida iyo khubaro Soomaaliya ay si degdeg ah ay arintaas looga fariisto oo guddi looga sameeyo special committee mushkilada meesha ka jiro waxa weeye Soomaalida anaga haysta waxa la yiri mar walba sida adiga aad sameyn kartid intuu la soo yaqaan isaga ha marka waxa wanaagsan in anaga mar walba sida anaga danta iyo waxa macquulka in sameeyno mar wixii hore oo sameyn jirnay marmarka qaar kood hadeeyan soconayn ina bedeshid weeye oo sida wajada ku socotid marka mushkiladna haysata anaga Soomaali waxa waaye waxba gacanteena kuma jiraan dhaqaale ma maamulno oo de waxa laga yaabaa dhaqaale inuu aid ku yimaado governmentka dawladda ah bangiga dhexe waxa laga yaabaa inuu ka sugayno qof kale inuu noo sameeyo lacag waxaan rabnaa in dadka noo soo sameeyaan laakiin arintaas dadka kale ku soo sameeyay iyaga waa dadka ka gooniya dana gooniya wata muxuu lacagta Soomaaliya ku soo sameeyay adiga lacagta dollarka buu rabaa in lagu isticmaalo Soomaaliya si lacagtiisa ku socoto oo exchange uu helo si direct oo ku maamulo oo ku control power ki maanta dhaqaaleena waa galay military uu galay marka haddii aniga lacagteeda aad u baahan tahay maxaan ku siinayaa waa khasab inaan arrimaha ka fariisid haddii kale kuma siinayo waa si natural waa wax caadi oo dadku dhan bini'aadamka Ilaahay nagu beeray qofku sida loo kala dhaqaale iyo xoog badan yahay laysu maamulo ama laysu control ama laysu influence laysu sameeyo marka lacagta Soomaaliga waxa siyaasadeedu badanaa sameyn kara dawladda dhexe oo timaada haddii uu sameyn waxa lagu jiray waxaan ku jireynaa maxaa dhahaa dhaqaale economic crisis ka hadda ku jirno kaleeto tan kale oo aan fiici karto waxa kamid ah lacag la helo xataa lacagta dibadda ka imaanaysa dollarka ah waxay imanaysaa wadanka waxa xoog yeelanaya lacagta Soomaaliga ah sababtoo ah 60% lacag adag markay dibadda ka timaado lacagta adag 60% exchange-geedu wuxuu noqonayaa Soomaaliya shilinkii marka bangiga dhexe wuxuu helayaa lacag adag
oo ku gogortamo wuxuu gadayaa shilin Soomaaligiisii maadaama dad diaspora ay lacag soo dirayaan oo leeyahay boqolkii oo bangiga dhexe buu soo marayaa Soomaaliya baan ku siinayaa inta sanad ka gadaya lacagteeda marka halkaas waxay noqonaysaa in dadka local ku yahay oo joogaan hadii lacag adag helaan oo qofka Soomaaliga lacag adag halkan ka helo qofkii 1 milyan oo Soomaaliya qaatay wuxuu noqonayaa inuu ilaa $300 qaato lacag fiican oo marka strong buu halkaas ka dareemaya marka waqti dheer ba arrintan soo jiitamaysay in badan siyaasiyiinta Soomaalida oo dhinacay doonaan baha ahaadina waa ka hadleen marar badan waa tii xitaa la yiri lacag shil ah la soo sameeynaya wixii hadda ma aqaan meelay aaday oo ma muuqato xitaa marar dawladdu waa tay sheegtay in waqti kooban gudaha lagu sameynayo arrimihii qorshihii ahaa in lacag la soo sameynayo maxaa xoog kala socotay maadaama si weyn dhaqaalaha Soomaaliya oo la socotid tan kale hadii awoodda dawladeed iyo marnaanshaha awoodda dawladeed iyo la'aanteedu ay maqan tahay lacag la soo sameeyo hal ma noqonaysa wallahi horta lacagta sameynteeda wax ka horeysa yaa lacagta controlaya waxa ka horeysa nabadgelyada in la helo qoladii control lahayd waxaan lacagta iyo xuduudaha oo isku xiran yihiin hadii aniga aan lacag soo sameeyo oo aan hal meel macnaa aan wadankiina wada xukumin laakiin aan lacag soo sameeyo waxba ka waduwelin ma dadkii maamuladii ama dadkii hore lacag soo sameyn jiray way hadda lacag soo sameeysid aniga lacag ma soo sameeyay dhinac kan kala soo digaya lacagtii horta waa la mid bay noqonaysaa sababtoo ah de wax cadeymo fara badan oo inaad ilaysan ahayn jiraya ma jirto marka hadii horta lacag sameyntii waa in ay jirtaa power aan ku control kartid هذا تصار أهم كسيني هذا سومالي لأن العقب يسمى ستة صمها العقد هذا نواسيلي اسمه بديشو محا كاني إيه ريال العقد كسو عسيني سكنتروشا قف العقد لا إيمان كرا أما وحكا لسمين كرا مجرو مركا سومالي ودن مثلا وإن حدودها هذا كنتروشا هو يعربه مركز كبعدنا بوليس ولا أكتها العقد بوليسي الأدوكا بوليس قارب على العقد الحصارا ضد قارب على لوطة وبرا لدق على العقد lacagtan maxaa dhahaa la soo sameeyay iyo lacagtu in si qalad u dhacdo marka ma aha arrin sahlan soo sameeyo oo la soo brinti garay wadanka ima uu gali kareema tan kale waxa ay hadana ku sugaysa money supply waxay dhaqaalaha dadka dhaqaalayaanka u yaraan oo ah sidee baa lacagta loo gudbinayaa sidee baa jaynka lacagta supply loo gaarsiinaya meel walba yaa gaarsiinaya policy-ga lagu gaarsiinayo waxaas oo dhan inkastoo ay leeyihiin bank act iyo bank policy waa la sameeyay haddana waxaan wax cad oo si la yaqaano loo sameeyay oo wala sameyn karaa wixii wala qori karaa dad Soomaali badan baa joogta aqoon-yahano oo khabiir ah oo ilaa iyo 50 sano leh laakiin waxaan rabaa in la helo fulintii baan waxaan easy ahayn lacagtana waxa ugu muhiimsan sida lacagtu ay loo fulinayo mid kale ku jirto waxa way adiga ogo IMF iyo World Bank anaga la waday World Bank iyo IMF iyo intaba waxaan anaga ma garanaysaa lagu dacweeyay in corruption kan uu hayahay oo corruption meeshii ka jiro marka musuqmaasuq inuu jiro marka kuma kalsoona inay lacag sameeyaan waxa laga yaabaa in iyaga hawo badan oo lacagtii loo soo sameyn jiray baa jira waxa laga yaabaa in IMF ay taahdo aan in la sameeyo oo money supply ka lacagta interest la qaaday wax ku yeelato waxa kale oo jira deyman la ku leeyahay oo iyadana aad u badan oo aan easy ahayn oo deynta ay bangiyo iyo wadamo iyo shirkado iyo inagu leeyihiin oo wali taagan arrimaha lacagta iyo siyaasadda lacagta iyo waa arrin aad u dhib badan oo u baahan in waqti kale ka qabano sababtoo ah waa wax aan easy ahayn in la dhex waa ana mid kale marka laga hadlayo dawlad marka laga hadlayo waa laba saddex qaybood hadda dhaxan Soomaaliya qaybta ugu weyn waa qaybta monetary policy-ga dadka maamulo waa qayb dhan oo taagan oo dawladda kamid ah bangiga dhexe malayaaba iyo wasiirka maaliyadda waa good committee la yiraahdo committee-ga dhaqaalaha ama monetary policy committee wadunka hore waa leeyahay committee-gaasna waa committee madax bannaan laakiin arrintan hadda aad soo qaado wax ka taabatay oo ah tan musuqmaasuqa aad baa la yiraahdaa Soomaalida ugu badan yahay tusaale hadda warbixintii ugu dambeysay oo qaramada midoobay ee dhaqaalaha Soomaaliya ka soo saartay guddiga arrimaha u xilsaaran waxay sheegeen in inta badan dhaqaalaha dalka la musuqmaasuqo tan dibadda ka timaada iyo tan dalkaba oo tusaale waxay u soo qaateen waxay yiraahdeen lacagta ka soo xaroota baasaboorada
dawladda Soomaaliya ay bixiso boqolkiiba 4 oo kali ah baa dalka gasha boqolkiiba 96 waa la musuqmaasuqay meel marti lama yaqaan marka musuqmaasuq heerkaasi saameyn inta la eeg isna ku yeelanaya dadka uu ku leeyahay horta musuqmaasuqa waa run musuqmaasuq uu jira laakiin musuqmaasuqa Soomaaliya kama adduunka musuqmaasuq ka jira waa kala weyn yahay waana kala habaysan yahay waana kala farsameysan yahay waxa yaab inta ay u arkaan wax iska cado aan qofku si bareer ah u qaadanayo markii uu dhaan boqolkiiba 4 ma inta kaleeto ma ba timaado yani waa iska bareer ma aha wax la farsameeyay musuqmaasuq waxa badan loo yaqaanaa wax inta la farsameeyay aan la fahmi karin oo qofka ayaga u fahmi karin laakiin haddana la isticmaalay ها si kale loo fahmi karin oo ku doodi kartid in uu haddana sax tahay oo wixii maaragtay aan aad u adag tahay laakiin tan hadda ay sheegayaan soo qoreen wax iska cad macnaha boqolkiiba 70 oo lacagta ma soo gasho marka waxa taas horta waa run anaga waxaan noqonay musuqmaasuqa dawladaha ugu horeeya haddana tan labaad inta kuwa lahayd yani dawladda musuqmaasuq hadaf yani meel aan laga hadli karin waa ka xumaartay anaga muslimiina inaanu dad gaala ina dhahaan musuqmaasuq aan anaga diinteena ka soo horjeeday oo islaam mataan nahay yani kow inana musuqmaasuqna islaamkeena ku jirto oo yani calaamaadkii gaalada ka dayanahay inaan musuqmaasuq lahayn in anaga ku eeday inaan wax la xadin inaan loo ku eeday arrin ilaahay yani aad uga xumahay insha Allah aan rajaynayo inaanu noqon doono dadka musuqmaasuq lahayn oo lambar 1 adduunka lagu daydo laakiin hadii soo jeesano horta musuqmaasuq waxba ay nagu eedeynayaan waxa kamid ah hadda tan baasaboorka matalan waa wadankii dhan system fadhiyo oo wax lagu control karo ma leh mid qof walba meeshii uu madaxda ka yahay wasarka ah transparency iyo regulation iyo policy midna inuu jirin baa laga yaabaa hadduu jirana qofkaas waa qofka meesha u sareeyo la xisaabtami karin midda kale yaa wax xisaabtama dadka hadda la xisaabtamaya oo corruption soo saaraya waa dad waa isa sheegtay waa military group iyo UN iyo World Bank iyo waxaas nagu eedeynay Soomaaliya waxaa la rabay in ay jiraan Somali citizen ama Somali community inaga sax xisaabtano marka qof lamida markuu xisaabtamayo waa la kala baqaya marka Soomaaliga inahay way kala qabsanayna ama weyn ka sugayna laakiin waxa laga yaabaa lacagta markii horeba waa lacag deeqadeen noqoto xataa markii horeba la soo musuqmaasuqay oo dee musuqmaasuqa Soomaaliya kaliya maaha lacagtan lacag badan baa wadanka soo gasha oo nina ku leeyahay oo billion dollars ah ama soo lacagta la siiyo iyo inta bixiso iyaga laftiga anaga la xisaabtano taasoo waa in meesha la saaro yaa la xisaabtama waxay ku leeyihiin 200 bilyan baa kugu baxay 200 milyan baa sanadkan kugu baxay 300 baa kugu baxay ma naqaano guddi ma jiro Soomaaliya oo madax banaan oo iyagana la xisaabtama waa kow guddi kale oo ma jiro anaga isma xisaabtano hadda meeshan baasaboorada ay soo saarayaan dadkan ajnabiga ah anaga in u tagno qolada baasaboorka aan lacagta meesha guddi ku jiro oo la isku daro lacagta baasaboorada laga helo intee weeye xagee gelisaa maxaa ku samaysaa intee soo baxda anaga isma xisaabtano ma aha qof dibad in la xisaabtato waanu saamsanahay way dibadda wax badan baa ka horeeya marka corruption ila dibad gudaheena aan saxno corruption kuma dhamaanayso sababta corruptionka dibaddana waa la arkayaa sharciyo badan oo qofkii qabanaya ma jiro nabadgelyadii iyo system meel la isku xisaabtan karo ma joogto qof walba de maganaysa familkiisa iyo wuxuu noqonaya marka corruptionka Soomaaliya inuu ka dhamaado waa arrin ku xiran in marka ugu horeysa dawladnimo rasmi ah oo leh sharciyadeeda la helo ياسين حاج عبد الله بلداتش آدي آد بان مارتي كاغا مهدعلينيا sida qurux badan ee arintan aad u sharaxdo uga sheekaysay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan la soconaa dawladaha Soomaalida ee dhasha ama tan hadda jirta ha ahaato ama kuwii ka horeeyay ha ahaatee waxa jira lacag badan oo deeqa ah oo loo ballan qaado oo dawladda u ballan qaadaan tusaale hadda shirkii Ingiriiska ka dhacay ee ugu dambeeyay lacag badan baa loo ballan qaaday oo malaayiin dollar ah hadda September soo socota shirka la filayo inuu Belgium ka dhaco isna lacag aad u badan baa la filayaa in Soomaaliya lagu yabooho lacagaha faraha badan xagee bay aadaan oo Soomaalida ama dawladaha lagu yaboohayo dalkana waa u jeedaayo wax isbedel ah lacagaha dibadda ka yimaado oo deeqaha dawladda loo siiyo kama sameeyaan uma muuqato marka lacagahaas ma dhinacii ballan qaaday baysan ka imaan oo waa dad afka dufan loo mariyo waxba la siin ma Soomaalida musuqmaasuqda maxaad ka oran kartaa
horta waa run lacaga badan baa la ballan qaaday tan iyo yani dawladdii hore xataa ilaa cabdullaahi yuusuf ilaa dawladda shariifka ilaa shirkada ugu dambeeya london ilaa kan hadda imanaya oo brussels oo new deal loo bixiyey lacagaha dawladaha ballan qaadaya waa saa sheegta weeye lacagaha layskama ballan qaadaya danana way ku xiran yihiin midda kale lacagaha lacaga maaha markiiba hore laga bixinayo waa lacaga muddo fog lagu talagalayo in lagu fushado qolo walba ay sida ay rabto u bixiso mana maamulayaan soomaalidu sida badanaa aniga aan warka ka hayo financial joint group baa maamulaya ma UN hala mariyo ama group wadajir hala mariyo lacagta waxa yar wixii la siin lahaa hadda corruption lagu eedeeyay xataa waa kamid in wax lagu eedeeyo inaadan si aan loo bixin waxa marka qolo walba lacagta la sheego oo la ballanqaadka ah waxay Soomaalidu dadka hay'adaha waa yaqaan waa soo deyn baa lama soo deynayo waxa uu leeyahay 50 million baa lagu ballan qaaday laakiin 50 million ki mar waxa lagu siinayaa 1 million mar waxa lagu siinayaa 2 million oo 2 million ay la socoto khaladkii iyo operationkii iyo wixii ku baxayay marka waxa laga yaabaa boqolkiiba 2 ama 3 ama 10 kaliya in heshay mesela hadii la yiraahdo wax caafimaadka waxa lagu bixinayaa lacag 3 intaas milyan waxa kow operation kaliya ku bixaysa operationka Nairobi kaliya maaha Nairobi hadii isu sharnaan Geneva hadii tahay New York tahay lacagta Soomaaliya marka lagu talagalay marka horeba wadan meelo badan ku soo baxay marka intii ugu dambeysay waa ku soo gaaraysa oo ah one day operation kaliya sameeynaayo lacagteeda diyaaradaha dulcigeeda wax walba ugu jadganaya costiga ha diyaarada ka soo baxaysa Nairobi halka waxa laga yaabaa in 200 300 ku timaado one time timi qofka khabiirka imanaya inuu sanadkii lacagtu ka helay ilaa 5 milyan tahay oo director weeyaan dadkan madaxda intee qaataan consultantka yani kharaj yar ba lacagtuna waa lacag muddo la iska haynayo laakiin hal mar baa waxa lacagtii waa la bixiyay oo intaas wadamada way ku xirantahay wadan walbana goonidiisu ku seenaysiisa marka buugi way galaysaa waa hab maaliyadeed khiyaanooyin iyo waxyaabo fara badan dadka Soomaalida marka aniga waxaan aaminsanahay yani shakhsiyan in ku tiirnaashaha lacag dibadeed oo ay tahay wax aad iyo aad u liita oo ay qola ku tirsan aysan mar qof bini aadan ku tirsan hadaa adiga hadda midna ku tirsan tahay qof kale lacagtu ku soo diro ama lacagtu biilku ku siiyo waxa ma ilaa horumar gaari kareen laakiin marka adiga waxa la soo baxdo ay tahay hatta corruption ku waa ka yaraanaya hadaa lacagta laga helayo lacagta dadka ka bixisa ay tahay hadaa lacagta aniga aan bixinayo waa kula xisaabtamaya aad baa maasantay Dr. Yaasiin ugu dambeyn adoo waxa soo dhaka duulaya maxaad oran kartaa uu noqon karaa halka arrimahan xal loogu heli karo ama lagu yareyn karo bal dhibaatooyinka dhaqaale ee wadanka jira wallahi waxay ila tahay number 1 Soomaalida inay ka duusho unity-ga yani isu inay waxa ay danaha ay leeyihiin kamidooban wadan Soomaalidu kulligood isku qof walba dadka Ilaahay waa kala duwan nin walba interest gooni u wataa oo arrin caadi waaye laakiin waxa jira wax common oo dadka Soomaali oo dhan ka dhaxaysa waxa kamid ah ka hadlayo dhaqaalaha wana ka wada dhaxaya lacagta wana ka wada dhaxaysa caalamku wana ka wada dhaxaya amnigu wana ka wada dhaxaya maxaa la waxyaabahan xuduudaha wana ka wada dhaxayaan marka waxa naga dhaxaya horta in faano mid kale waxa kale oo Soomaalida laga yaabo aan aniga hadda ku darsanaya halkan ka ka faysan in faano u baahna in anaga ay nahay dad internal enemy dad cadow gudaha baan isku nahay yes laakiin kan dibadda ba ka weyn oo siyaasadda ahaan dhinaca dhaqaalaheena waxa lagu yahay against oo Soomaaliya xataa raali laga ma Soomaaliya inay noqoto wadan economically boom yahay wadamo badan oo kala ka soo horjeeda oo dhaqaalaha ku xiraya oo burburaya tusaale ahaan midna hadii la yiraahdo Soomaaliya geeska Afrika ay burburka weyn baa laga sameeynaya wadamo badan baa xirmaya waxa Dubai baa midna ma kamid ah Dubai wadan boom ah Soomaaliya barwana wadamo soo xirtay kow wadanka Asia number 1 ahaan jiray Hong Kong meel laga wado ahaan jiray Soomaaliya New Delhi baa ku xigtay oo ahaa maxaa la dhahaa India meesha airportka ugu weyn bay ahayd mar Malaysia ahayd hadda Dubai baa maalin walba ka waxa yaabaa in noqoto Boosaaso meel kamida ama meel Muqdisho kamida ama meel Soomaaliya kamida ama Berbera inay noqoto geeska Afrika ama Middle East garoonka ugu weyn oo dhaqaalaha ugu weyn ka soo gala adduunka marka adduunka competition dadkan wax ku siinaya ama dadkan dawladahan kaleeto waa dhinac marka laga eego enemy kaaga yihiin oo horumarka batrool haduu soo baxo oo batroolka uu noqdo geedka waxa laga yaabaa in wadamo badan oo batroolka laga iibsan jiray oo noqoto marka
وإن الصوماليين أوجادان ودن كايركا إليه هذا إسكو درسان كرانا يسوي ناس أولا ما مشان هذه كانوا ده أوجادان إن ضد بدن أو يجوا إسكو درسان أو خلا أي جيران أو عدو كوه يجا أو أي هرومر كودو دي بدو عدو كون عكرو مركا أرين عاد خطير وهو أرين تاس مركا فيشين كعاد وين وإن إسرائيل فيش كذا صوماليين كلت لي بحول هذا عن عادكو شراء dadka diasporada ah oo waxa laga yaabaa hadda in si qalada u isticmaalaan waxyaabaha inkabadooda inay yihiin power jira oo investment wadankooda ku sameeyaan oo yimaadaan nin walba gobolkii degmada ku dhashay muhiim ma in hal meel waato inuu si invest ku sameeyo si ay u tuso way arno badan buu ka helay cunsurinimo buu ka helay soo u tuso in dadka localka ah ay isku midkooda yihiin marka arrimahaas ku talnay aad baa maarsantahay barnaamijkii martisoor ee toddobaadkan akhyaartana dhageysanaysa ay waa naga intaas waxaana toddobaadkan marti noogu ahaa professor Yaasiin Xaaji Cabdilaahi anigoo tolmaan ayaa barnaamijkan la socodsiinayay inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno toddobaadka dambe haddii Allah awood la ogolaado waa tolmaan oo idin leh nabadgelyo adduunyadana loo farkaahi gantaalaha lagu lalabay yaallo iyo ari raacaya diyoy adduunyadana loo farkaahi gantaalaha lagu lalabay yaallo iyo ari raacaya diyoy Hit